gobolka Hiiraan waxaa ka socda dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka macawisleyda oo taageero ka helaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo dhinaca dagaalkaas oo saaka bilowday ilaa waqtigan si culus ayuu uga socdaa deegaano ka tirsan gobolkaas iyadoo ciidamada macawisleyda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen guulo isla markaana gacanta lagu soo dhigay dagaalamayaal nool oo ka tirsan kooxda al-shabaab dagaalka ayaa si gaar ah waxa uga socdaa inta u dhaxaysa deegaanada lagu magacaabo Jicibow iyo sidoo kale Beero Yabaal oo dhaca bariga gobolka Hiiraan waxaana saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan la xiriirnay ee noo xaqiijiyeen in ugu yaraan ilaa 2 dagaalamo oo kooxda al-shabaab ka tirsanaa oo mid kamid ah hogaamiye uu yahay ay gacanta ku soo dhigeen oo ciidan kamid ah ama maleeshiyaad kamid ah raggii dagaalamay oo hogaaminay sidoo kale waxaa jira dagaalamayaal badan oo al-shabaab ka tirsan oo halkaas lagu dilay qaar la dhaawacay iyo deegaanadii lagu dagaalamay oo gacanta u galay xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda deegaanada dhaca bariga gobolka Hiiraan dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhaxeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda iyadoo dhammaan goobihii lagu dagaalamay al-shabaab looga adkaaday hub laga qabsaday sidoo kalena laga laayay maleeshiyaad badan oo ay gobolka dhinaciisa bari ku soo daayeen saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa deegaanadaasi ku sugnaa oo howlgalka hogaaminay waxaana kamid ah taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale waxaa tagay agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka saraakiil kale oo ugu weyn yahay taliyaha militariga Soomaaliya ayaa qayb ka ah mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan u tagay dardargelinta iyo abaabulka dagaalkan kaliya Hiiraan kama socdo dagaalada ka dhanka kooxaha argagixisada ah ee sidoo kale deegaano kamid ah gobolka bari ee Puntland ayaa guulo waaweyn laga gaaray kadib markii la baabi'iyay dagaalamayaashii Daacish ee halkaas ku sugnaa dhul balaaran oo buuro ah ayaa laga qabsaday maleeshiyaad badanna waa laga laayay oo ajaanib ah sidoo kalena waxaa laga qabtay deegaanadii ugu muhiimsanaa oo keedka iyo madaxdaba u seexan jireen kooxdaasi Puntland iyadoo kaashanaysa dadka shacabka ah iyo sidoo kale taageero dawladda dhexe u fidisay iyo beesha caalamka ayaa waxaa lagu guuleystay in deegaano muhiim ah oo ku yaala buuraha gobolka bari laga saaro kooxda Daacishna waxay dagaal gelinaysaa dadkii ajaanibta ah dadka dagaalada wax ka yaqaana waxay ku sababayeen in Daacish ay ajaanibta dagaal geliso in ay raadinayso in marka hore waqti badan dagaalamayaal dagaalami kara inay helaan sidoo kalena ay helaan dagaalamayaal aysan jirin meel u soo laabtaan iyo inay culayska saaran iska dajiyaan waana sababta keentay in ajaanibta halkaas ay geeyaan oo qaarkood aysan wadanin foonayaashii lagu wada xiriirayay oo loogu talagalay inay dagaalkaas ku dhintaan ama inay halkooda joogaan waa la soo gudbin laakiin intaasi uma suurtagelin oo cagta ayaa la mariyay dhul balaaran ayaa laga qabsaday kooxaasi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dagaalkaasi ka hadlay waxa uu hambaliyay dadka ciidanka garab taagan ee shacabka ah maamulka Puntland iyo ciidamada deegaanka ee halgamaya waxaana xukuumadda faray ballanqaadkii ay sameysay oo ahaa taageero in loo fidiyo Puntland ciidankada dagaalamaya lala garab istaago oo si degdeg ah uga jawaabto go'aankii golaha wasiirada ee ahaa taageeridda howlgalka ka socda meel kasta oo Soomaaliya kamid ah kaasoo isugu jira taageero military iyo sidoo kale in la siiyo ciidan in dhaqaatiir iyo sidoo kale daawooyin la siiyo ama loo diro wixii dibadda u baahdana bixitaankooda loo fududeeyo dawladdan oo ay qaado Soomaaliya waxay ku jirtaa mid kamid ah dagaaladii ugu qaraaraa meelo badan oo kamid ah ayuu dagaal ka socdaa argagixis ayaa lagu dagaalamaya oo al-shabaab iyo Daacish ah oo dalka dhibaato ku ah waxa warar ku soo kordha waxay ugu soo gudbi doonaa wararkeena barnaamijyada dambe hadii Allah uu dilo wadmo